asxaabtu waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub maanta waxaynu eegaynaa rikoorka tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta marka ay timaado finaalada waaweyn iyadoo finaalka Champions League uu soo dhawaanayo taageerayaasha Arsenal waxay sii wadaan inay ku riyoodaan kooxdooda inay ka adkaan doonto PSG oo ay noqoto horyaalka Yurub kadib markii ay xaqiijiyeen hanashada horyaalka Premier League horaantii bishii May. Arteta wuxuu aaminsan yahay inuu mar kale kooxiisa ku hogaamin karo guul weyn. Haddaba aan eegno sida uu soo baxay finaaladii hore uu maamulay Arsenal waxay laba kaga badisay Chelsea finaalkii FA Cup-ka 1 Agoosto 2020. Arteta wuxuu xil ciyaareedkiisii ugu horeysay ku soo gabagabeeyay guul uu ku gaaray Chelsea finaalkii FA Cup-ka ee 2019-2020 isagoo noqday tababarihii ugu horeeyay Arsenal tan iyo George Graham xil ciyaareedkiisii 1986-1987 ee koob uu ku guuleystay sanadkiisii ugu horeysay ee kooxda. Kulanka waxaan si caadi ah loo ciyaaray Agoosto kadib markii cudurka coronavirus uu hakeeyay kubadda cagta bishii Maarso 2020 halka xil ciyaareedka la joojin lahaa. Mas'uuliyiinta waxay ogolaadeen in kulamada haray la ciyaaro. Arsenal waxay ka soo laabatay gool laga hormaray daqiiqadii 5aad waxayna ku badisay 2-1. Laba gool uu dhaliyay Aubameyang ayaa kooxda u horseeday koobkoodii 14aad ee FA Cup-ka. Arteta wuxuu adeegsaday 3 daafac maalintaas waxaa lagu ammaanay sida uu la qabsaday kooxda uu kala wareegay Unai Emery bishii December 2019. Arsenal waxay mar kale hal ay la gashay Liverpool Community Shield-ka 29 Agoosto 2020. dood ku saabsan in Community Shield-ku loo aqoonsan karo koob weyn weli way socotaa balse taariikhda waxay qori doontaa in Arsenal ay ka qaaday Liverpool koobkan Agoosto 2020. Aubameyang ayaa mar kale gool dhaliyay Wembley daqiiqadii 12aad balse gool dambe uu dhaliyay Takuma Minamino ayaa ciyaarta u dirtay rigooreyaal. Arsenalna waxay dhalisay dhammaan 5 rigoore halka Liverpool ay istaagtay markii Raheem Brewster uu qasaariyay rigooradii 3aad. Ugu dambeyn Arsenal waxay ku badisay 5-4 rigooreyaal inkastoo dabaaldeg uu ka dhacay mar kale garoon maran. Arsenal waxay mar kale hal ay la gashay Manchester City finaalkii Community Shield-ka 6 Agoosto 2023. dad badan ayaa filayay in Arsenal iyo Manchester City ay ku tartami doonaan horyaalka Premier League xil ciyaareedka 2023-2024 waxaana kulankoodii Community Shield-ka sii kordhiyay rajadaas. Ciyaarta waxay ahayd mid aad u adag balse Manchester City ayaa hoggaanka qabatay daqiiqadii 77 iyadoo uu gool u dhaliyay Cole Palmer. Si kastaba Leandro Trossard ayaana barbaraha keenay daqiiqadii 101 taasoo ciyaarta u dirtay rigooreyaal. Manchester City waxay qasaariyeen 2 ka mid ah 3doodii hore halka Arsenal ay dhalisay 4toodii ugu horeysay taasoo siisay guul 4 gool oo rigooreyaal ah iyo Community Shield-koodii labaad ee Arteta. Arsenal waxaa mar kale 2-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta Manchester City 22 Maarso sanadkan aynu ku jirno 2026. markii xigtay Arsenal ay gaartay final rasmi ah nasiibka ma uusan raacin iyadoo Manchester City ay 2-1 kaga badisay finaalkii Carabao Cup-ka bishii Maarso 2026. Arsenal waxay finaalka u gashay iyadoo loo arkayay kooxda ugu cadcad laakiin qaab ciyaareedkoodii taxadarka badnaa ayaa ogolaaday in City kubadda haysato 62% waqtiga ciyaarta. Manchester City ayaa hoggaanka qabatay markii Nico Oliro loo daayay meel bannaan gudaha diilinta ganaaxa saacadda ciyaarta markay gaartay wuxuuna 4 daqiiqo kadib dhaliyay goolkii labaad. Guuldaradani waxay abuurtay cabsi in Arsenal ay burburto dhamaadka xil ciyaareedka balse taageerayaasha waxay ku qanceen hanashada horyaalka Premier League 2025-2026. wadarta guud ahaan Mikel Arteta wuxuu galay 4 finaal isagoo tababaro u ah Arsenal wuxuuna ku guuleystay 3 ka mid ah halka hal finaal laga adkaaday. Rikoorkaas wanaagsan ayaa siinaya taageerayaasha Arsenal rajo weyn oo ka hor finaalka Champions League ee PSG. Haddaba ma rikoorka wanaagsan ee Arteta ayaa Arsenal ka caawin doona inay ku guuleysto Champions League mise PSG ayaa noqon doonta kooxda qaado koobka? Fikirkaaga noo reeb qaybta faalada ha ilaaweyn inaad like saarto aadna share gareyso. Asxaabta TikTok waxaan kaga codsanaynaa inaad noo muuqataan linkiga YouTube-ka ee profile-ka saaran waad baahatiin.